suugaan bandhigeedkan ardaydani waxa ay qayb ka tahay xaflad lagu maamuusayay qalinjebinta ardayda sanadkan bogatay heerka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ee Alwuxda Primary Secondary School ee magaalada Muqdisho. xafladan oo si sare loo soo agaasimay isla markaana lagu qabtay Hotel Sayid ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladda Soomaaliya iyo gobolka Banaadir, maamulka sare ee Alwuxda Primary Secondary School, macallimiin, waalidiin, culimooyin iyo marti sharaf ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada. dhammaan martidii ka soo qayb gashay munaasabadan oo kelmado ka jeediyey madasha ayaa ardadan maanta ay qalin bedelanaysa waxa ay si isku mid ah ugu baraarujiyeen ahmiyadda waxbarashada, waxayna ugu hambalyeeyeen heerka ay maanta soo gaareen. Cabdirasaaq Nuur Jaamac waa maamulaha guud ee Alwuxda Primary Secondary School, waxaana sharaxaad ka bixinayaa ardadan maanta ay qalin bedelanaysa iyo marxaladihii ay soo mareen. ujeedada kaliya halkan aan ka leenahay maanta xafladan inaan isugu nimaado waxay tahay maadaama annagu aan marqaati ka ahayn guushiina iyo dadaalkii aad soo samayseen intii iskuulka aad soo dhiganayseen in aan bulshada Soomaaliyeed aan marqaati idinkaga dhigno guusha aad soo gaarteen, maadaama aan hore idinkugu soo sheegi jirnay in aan madal ka duwan nolosha iskuulka aan marqaati idinkaga dhigi doono guushiina oo aan la aamusi doonin. taas ayaa keentay marka maanta 11 bisha July ay tahay 2019 in aan halkan casuumaadaan idiin samayno isla markaana maaragtay aan u dabaaldegno guusha aad soo gaarteen. horey waxaan u soo dhignay waxaad noo soo qabateen aan dhahe xaflado sagootin ah oo ujeeddadoodu ay ahayd ardaydii iskuulka idinla soo dhiganaysa ama fasalladii kale aad ka baxayseen inaad ku soo sagootisaan. tan laakiin way ka gedisan tahay, waa khitaamkii waaye ama guntii iyo ganaanudkii oo dugsiga sare aad ku macsalaamay lahaadaan, isla markaana maadaama 2 bilooda fasaxa maaragtay gadaal aad u fiiri doontaan oo ardayda kale iskuulka ku hari doontana aad si wanaagsan maaragtay ugu iyagana u sagooti doontaan. sidaas daraaddeed marka maanta waxay tahay ujeeddada koowaad waa farxadda iyo raynraynta ardayda ka qalin jebinaysa marxaladda dugsiga sare. sidoo kaleeto dadkii iga horreeyey iyaguna dugsi sare oo keliya halkan qalinjebintu ma ahan, waxay tahay iyaguna waxaan meesha ka marnayn fasalka 8aad oo iyaguna gadaal u fiiriyey 8 sano oo waxbarasho ah, isla markaana u gudbaya 4 sano dugsiga sare iyagana fooda lagu soo hayo insha Allah. marka iyagana aad iyo aad ayaan ugu hambaleynayaa labada fasal ee Form 4A iyo Form 4B iyo fasalka 8aadka. haddii aan horey la idin xusina macallimiinta idin hilmaamaan annaga ayaa idin xusi doona insha Allah. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin, iyaguna xafladda ayay wax ku leeyihiin. ujeeddada marka xafladda soo koobo ujeedku wax kale ma ahana waxay tahay waxaa jira arday fara badan oo iskuulka horey uga qalin jebiyey ilaa iyo 6 sano ee lasoo dhaafay. iskuulka maadaama la sameeyey ama la aasaasay 24 Juun 2009 maantana aan joogno 11 July 2019 halkaas iskuulka cumrigiisu ama da ahaantiisu waxay jirtaa 10 sano ayuu iskuulka Alwuxda soo shaqaynayay. sidaa daraaddeed marka 10 dafcadood oo dugsi dhexe ah iyo 6 dafcadood oo dugsi sare ayaa ka qalin jebinaysa. marka waa sanadkan 2019 dafcaddii 6aad ee dugsiga sare iyo dafcaddii 10aad ee dugsiga dhexe ayaa halkaas ku qalin jebi doona. qolada heer ay ka qalin jebi doonta sida boorka idinkugu xisan. gabagabadii xafladda ayaa shahaado bixin kadib waxaan dareenkooda wax ka weydiinay qaar ka mid ah ardada maanta ay ka qalin jebisay Alwuxda Primary Secondary School. bismillaah, magacaygu waa Ikraan Axmed Faarax oo ka qalin jebinaysa maanta iskuulka hoose dhexe sare ee Alwuxda Primary Secondary School. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan macallimiinta, ardayda, waalidka waxbarashada igu soo garab siiyay intaasoo sano. maanta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waayo xafladeyda qalin jebinta ayaa soo gaaray. Axmed Maxamed Faarax, warbaahinta Raas Media, magaalada Muqdisho.